waagaa yaryareen waxaa maqli jiray mataqaanaa siyaasad amerikaana wadaa iyadoo la dhahayo siyaasad amerikaan maa ii keentay weligaa ma maqash ma lagu dhaha horta baatalay ogaadiba maraykan inuu dulli yahay war ninkaan siyaasadiisa wallaahi iyo bilaahi lama fahmi karo sheekadan qosolka badan maanta oo isniin ah maraykanka uu sameeyey ila arka waxaa la keenay nuqulaal un-ka la keenay ama jamciyadda qaramada ka dhexeyso waxaa la rabay in la cambaareeyo ruushka dagaalka uu ka wado ukraine fiiriya cambaareyn keliya in la cambaareeyo ruusho waa gardaran tahay ukraine faraha ka waxaa dhinac kasoo wada saftay oo istaageeray oo gacmaha isqabsaday ninka maraykan ahaa iyo ruush iyo north korea iyo belarus waa dalalkii maraykanka isla asagaa abuuray cadowtinimada ruush iyo yurub ka dhexeyso maraykan asagaa abuuray asaa keenay sheekadan dhaasaa waday north korea in la caburiyo oo go-doon lagu soo rogo oo dhibaato fara badan loo geysto isla maraykana keenay yurub wax dabar ay leedahay wareeta ma jirto maanta dhankoodu soo saftay maraykan wuxuu taagan yahay faransiis iyo jarmal iyo ingiriis iyo qashino waa idab darantihiin yacni dhankaanu ka soo saftay soomaali markay dhehayso siyaasad amerikaan lama fahmo ama way adag tahay walaa inaysan soomaalida taas been ku sheegin almuhim maanta ninkaan siyaasadiisa almuhim maanta maraykan wuxuu la soo saftay ruushoo la soo saftay maraykan wuxuu taagayaa ruusho sax waaye gal ukraine duqay eber ka dhig lacagta ugu badan iyo hubka ugu badan ee ukraine sanadii saddexdii sano lasoo dhaafay isku difaacaysay ee ruushka xitaa 100,000 ciidamo looga dilay maraykanaa bixinaya maantane dhankii kaloo kusoo saftay maxay ku tusaysaa marka arrinkan muxuu ku tusaya